qaybtii ugu xamaasadda badneed filinkii raadkii rajada qaybtiisa afaraad. Haddaba maxaa dhici doona? Waxaan rabaa inaan kula wadaago markii gacanta lagu dhigo Barney waxyaabihii dhici doona aad ku daawan doontid qeybaha xiga ee filimka. Sidoo kale Xareed oo yimid baadigoobayana ehelkiisii. Xareed waa wiilkii la dhashay Barney. Asma oo ah gabadha ballamisay Cawil iyo sidoo kale Barney inta aan la qaban ka hor, iyo sidoo kale Amran oo inta la kufsado iyadana muuqaalo laga duubayo. Maamaqadan dhibaato weyn ayaa u soo hoyanaysa inta ay islahayd shirqool, guhaadna dil, Barneyna qarka tur. Waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalka ama filimka qaybtii ugu xamaasadda badneed ugu kuloleed ayuu caawa maraya. Haddaba aan kula wadaago ee inta aanan bilaabin share gareey saaxiibada la wadaag, like-tu waa muhiim. Haddii aad nagu cusubtaan ku soo bir channelkeena Xalana Media waa mahadsantahay. Filimku waxa uu inoo marayay iyadoo gabadhii Asma ahayd oo Marwaan ay isjeclaayeen ay ballamisay Aaba Cawil oo ah Barney aabaheed. Aaba Cawil waxa uu raadinayaa gabadhiisa, sidoo kale Barneyna waxa ay raadinaysaa ehelkeeda, inkastoo ay iyadu u malayso in uu dhalay oday qoodhan oo dilay iyada aabaheed. Halkaas ayaa laga soo tix raacayaa, kadibna waxaa gacanta ku dhigaya oday qoodhan. Sidoo kale maamaqadan waxay la kulantay ninkii dhalinyarada ahaa ee guhaad saaxiibka la ahaa markii hore, waxaana lagu heshiiyey in la dilo. Waxa uu dhalinyaro u diyaariyey guhaad si ay u dilaan, waxaana la rabaa qaybtan filimka in tuugo loo ballamiyo oo halkaasi looga takhaluso, laakiin waa uu ka badbaadayaa maadaama uu yahay nin askari ah oo askari ahaan jiray. Ninkaana baadiye ayuu u cararayaa. Sidoo kale qaybta la yaab kale waxa ay tahay in Barney ay aaminayso in Asma ay shirqooshay oo ay u ballamisay ninka la yiraahdo oday qoodhan si gacanta loogu soo dhigo oo dib dambe uma aaminayso. Muuqaalka waxaad ku aragteen Xareed oo ka imaada dalka dibaddiisa oo dhulal gadanaya. Waxa ay isbaranayaan gabadhii uu dhalay oday Cawil. Jacayl ayaa dhex maraya. Ogow gabadhan waxaa dhalay Cawil, waxa ay la dhalatay Barney, Barneyna waxa ay la dhalatay Xareed. Gabadhan iyo Barney waa isku aabbo, Xareed iyo Barneyna waa isku hooyo. Wiilkan markay ay isbartaan xiriir ayaa dhex maraya oo hadda muuqaalka soo socda waa isjeclaanayaan oo si fiican isfahmayaan. Kadib waxay u sheegaysaa inay gabar ka maqan tahay, asna waxa uu sheegayaa in gabar iyo hooyadeed ay ka maqan yihiin. Waxyaabaha muuqaalka laga dareemayo yani dalka waxa u yimid waxay ahayd in walaalkiisa iyo ehelkiisa uu raadsado. Okay, Barney marka maxaa ku dhici kara ama maxaa lagu samayn doonaa? Ninkii la yiraahdo Qadar, Barney waa uu caawinayay intiisa badan, laakiin markii ay isqabteen isaga iyo guhaad waa uu ka xanaaqay. Waxa uuna go'aan ku gaarayaa dib dambe inuusan u caawin, yani markii xaafadda joogeen waa uu caawin jiray waxaasoo dhan. Laakiin musiibada dhici doonta oo ah qaybta ula yaabka badan filimka waxay tahay, horta filimku waa daba dheeraanaya, laakiin waa qaybta aragsan dhibaatada ay u geysatay walaasheed iyada oo Barney ku sameynaysa. Waxaa la yidhi god sireed ha qodin, haddaad qodidna ha dheerayn. Barney dhibaatadii loo waday oo ay rabtay aragsan si ay guhaad u hesho. Yacni nimanka tuugada ahayd waxay si toosa u raadsanayaan Amran oo ku weynaatay gurigii oo guurka ka raagay oo nin rabto, kadibna jacayl ayay u qaaday. Qaybtan ama yacni markii ay is arkaanna tuugadu way kufsanayaan, muuqaalo ayayna ka duubayaan. Waxayna ogaanaysaa gacanta in iyadu dhibaato ay ugu geysatay reerkeeda oo walaasheed ay baxar dhexda ka taagtay. Filimka musiibo weyn soo socota, in la isku dayo in la dilo guhaad, in gabadhan muuqaal laga duubo, sidoo kalena Barney in la masaafuriyo. Wiilkii Xareed ahaana waa uu joogaa oo waxa uu raadinayaa qoyskiisii. Waxa uuna helay wadadii uu wax ku heli lahaa, ilaa ay haddana afkiisa ma uusan furin oo sheekadan ma uusan soo ballan qaadin. Qaybta dambe ee muuqaalkana wax badan ayaad ku arki doontaan. Share gareeya saaxiibadiin la wadaag haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biira. Haddaba yacni qaybtan qaybta ka dambeyso filimkan waa uu kasii kulul yahay. Waxaana ku jirnaa season 2. Qaybtiisii afaraadna waxay noqonaysaa mid ka duwan qaybihii hore ee muuqaalada lagu soo bandhigay. Sababtoo ah marka waxaa la isku dayayaa in mashiino waaweyn la fuliyo,
in Barney waaba la qabto gacanta lagu dhigay, yacni in la masaafuriyo, in Guhaad la dilo. Sidoo kalena in Barney kufsiga ahaa ay nimankii u qaateen nambar qaldan inay bixisay Aragsan oo ah nambarka walaalkeed. Nambarkaas markii aad ogaateen qaabka uu ka soo gaaray, gadaal ayay ka shalayn doontaa oo aad ka arki doontaan. Yacni error ama qalad yar oo dhacay ayaa sababaya in walaasheed la faraxumeeyo oo ay ogaato in iyadu gacanteeda ay ku dishay, yacni ay ku qaribtay walaasheed, wayna isqarin doontaa oo lama ogaan doono. Sidoo kale ninkii la yiraahdo Qadar waa uu xanaaqsan yahay oo waxa uu ka careysan yahay wixii uu kala kulmay gabadhii walaashiis ahayd oo uu jaceylka u qaaday ee Barney, laakiin markan sidii hore uu caawin jiray uma caawinayo. Markii guriga la geeyo Barney, tacaddi iyo jirdil xun ayaa lagula kacayaa, iyadoo la bahdilay oo dhibaato loo geystay ayaa meel baadiye ah loo qaadayaa. Sida yacni u muuqato filimkan, maadaama uu ninka la yiraahdo Gordon sheegayo in markuu saas loogu keenaba uu baadiyo markaasi u dirayo. Ninkii la yiraahdo Cawilna waxaa adkaa doonta markan in gabadhiisii uu helo. Marka uu yimaado meesha, isna waxa uu ogaanayaa ama u qaadanayaa in Asma ay been u sheegayso. Waxaa marka damage ku imaanaya amase xoogaa caqabad xiriirka ka dhexeeya Marwan iyo sidoo kale Asma, maadaama odagii inta la ballamiyey iyo gabadhiisii been loo sheegay. Asma waa laga aamin baxayaa, ayada iyo Marwan qarqar ayay kala istaagayaan, odagii aabba ay ku haysat halkaas ayay kala marayaan. Barnina waxay u qaadanaysaa in yacni iyadu shirqoosho, cid dambe oo aaminaysa haba yaraatee ma laha. Ninkii Cawil ahaana reerkan waa uga dhammaatay. Fursadda keliya oo ay haystaanna waxay noqonaysaa Marwan oo isna sheekada soo gelaya. Sheekadu waa xasaasi, waana kulul meel xiisa leh ayayna maraysaa. qaybta soo socota la soo gelin doono, dadka qaar waxay u maleynayeen in la qaban doono ninkii la yiraahdo Gordon, laakiin yacni sidaas ma ahan. Filimku waa ka xiiso badan yahay qaybihii hore. Season 1 iyo Season 2na midba midka ka dambeeya waa uu ka daran yahay. qaybta la soo dayn doono saacadaha soo socda iyadoo ilaahay insha Allah waxay noqon doontaa mid aad adinka dhan wada jeclaan doontaan. Marka like iyo share ku dhufta meel fogna gaarsiiya si muuqaalku uu kugu soo gaaro, aad mar walba u noqotaan dadka ugu horeeya ee janaalkan ka daawada filmaanta xasaasiga ah, gaar ahaan Raadkii Rajada oo ah filimka aan mar walba xoogga saarno. Qaybta commentiga ra'yigaada iyo sidoo kale waxa ay kula tahay in qaybtan soo socota ay u dhici doonaan nagula wadaag. Saaxiibadeena halkan aan saaxiibka ku nahayna waa mahadsantihiin. Shargareeya saaxiibadeen la wadaaga. Haddii aad nagu cusubtihiin nagu soo biira. Sidaas iyo nabadgelyo. Waa qaybta xigta ee filimkeena iyo Raadkii Rajada.